xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani Khadar Xuseen Cabdi oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta guud ee xisbigaasi ayaa waxa uu dhaliilo xoogan u soo jeediyay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland isagoo sheegay in shirkadaha isgaarsiinta ay cunaa haysay 4 sano ee la soo dhaafay. Waxa maanta yaqiiqsi ah in wasaaraddeeni isgaarsiinta iyo tiknoolajiyaddu ay ku faanto inay horumarka tiknoolajiga ka shaqeynayso iyadoo aan la socono in 4 sanadood ee uu madaxweyne Muuse xilka hayay ay wasaaraddu cunaha haysay shirkadihii horumarka tiknoolajiga ka shaqeyn lahaa ee wadankeena ugu waaweynaa ay ka mid ahaayeen Dahabshiil iyo Telesom. Waxaan la soconaa in sanadkii hore baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu kaabis iyo wax ka bedel ku sameeyay xeer number 50/2011 oo madaxweynuhuna uu saxeexay. xeerkaas oo ogolaanayay in shirkadaha isgaarsiintu ay keeni karaan xadhkaha internetka ee badda hoostooda mara. Waxaan la soconaa in ilaa maanta aan la siinin oo loo diidan yahay shirkadahaasi license-kii ay ku keeni lahaayeen xadhkaha badda hoosteeda mara. Su-aasha isweydiinta leh waxay noqonaysaa aaway ballanqaadkii madaxweynaha ee uu campaign-ka ku galay ee ahayd sareynta sharciga. su-aasha isweydiinta leh waxay noqonaysaa maxaa loogu diidan yahay shirkadaha muwaadiniinta ah ee sharciga ah ee wadanka maalgashiga geliyay ee shaqaalaha sektorka ugu badan ee shaqo abuurka wadanka ka mid ah in ay keenaan xadhkaha internetka. maanta wadankeenu wuxuu ku yaalaa buqcad istaraatiiji ah oo aan inagu dhoofin karno internetka. Ethiopia oo ah wadan aan bad lahayn sida aan la socono oo ay ku nool yihiin population ka badan 110 milyan una noqon karta suuq weyn Somaliland sectorskeeda kala duwan waa meelaha aynu inagu internetka u dhoofin karno aynu iibgeyn karno. laakiin nasiib darrada maanta taala waxa weeye inaan inagu internet maanta Ethiopia ka soo iibsano. bal aqliyada noocaasa adigu qiyaas hatta Soomaaliyada aan u faano waxa Muqdisho yaala 2 xadhig oo kuwa badda hoosteeda mara 3na waa u soo socdaan. boosaasada inta ay noo jirta waxa yaala 2 xadhig oo ah kuwa internetka ee badda hoostooda mara. maanta Soomaaliya waa meelaha dunida internetku ugu jaban yahay. waajibaadka dawladnimo waxa ka mid ah soo bandhigista xoojinta iyo suuqgeynta wax soo saarka wadanka. maanta waxa wasaaradda looga fadhiyaa inay sheegto oo shacbiga Soomaaliland la wadaagto sababta ay ugu diidan tahay shirkadaha muwaadiniinta ah inay keenaan xadhkaha internetka ee badda hoostiisa mara. geesta kale waxa uu xogayuhu fariin u diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo ugu baaqay inuu isku dayo shirkadaha si ay ugu tartamaan aqoontooda. waxaana uu yidhi madaxweyne maanta waxa ku haray 11 bilood. madaxweyne ka fakar maxaad ka tagaysaa ummadaadii oo aad cadaalad u samaysay ma ka tagaysaa ummadaadii oo midaysan ma ka tagaysaa ummadaadii oo kugu faanaysa ma ka tagaysaa aakhiradaadii oo aanad warwar ka qabin ma ka tagaysaa. madaxweyne dadkan kulligood adiga ayaa madaxweyne u ah. sharaftu waxay ku jirtaa inaad ganacsatada isu dayso sida uu dastuurka aad madaxweynaha ku tahay uu dhigayo oo ay iyagu ku tartamaan aqoontooda iyo kartidooda ku tartamaan farsamadooda ku tartamaan waxa ay haystaan ku tartamaan adeegooda iyo tamartooda oo aanad midna lugaha qaban midna heeg u sii deynin. waa arin sharaf dhac kugu noqon karta adigana kugu soo noqon doonta. Samiicali Warsame, telefishinka Gobonimo, magaalada Hargeysa.